السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركلة إيو برنامج كنداعي الشو قيبتيس اللايفكا maanta waxaan jeclahay inaan ku qabto haddii Allah idmo subxaanahu wa ta'ala arrin aad iyo aad muhiim u ah taas oo ah calaf doon iyo caannimo calaf doon iyo caan doon diintaada iyaysan fasahaadin. xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday ayaan jeclahay inaan dul istaago muddo daqiiqada ah. xadiiska kani rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay maadi ibani jaayaani laba dhurwaa oo gaajaysan oo ursila ala fi ghanamin bi afsada laha min hirsi al-mar'i ala al-mali wash-sharafi lidini. wa xadiis aad iyo aad u qiimo badan runtii macnihiisa marka aad fiirisana wax badan laga yaabo inaadan ku miisaamin noloshaada, laakiin marka aad u fiirsato xaqiiqatan ku siin doono wax weyn oo noloshaada aad ka bedesho. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay laba dhurwaa laba yey oo gaajaysan oo lagu sii daayay xero ari. xeradu waa ari cidana kama ceshanayso, waa lagu dhex sii daayay, way gaajaysan yihiin. waxaa ka fasahaadin badan siday u baabi'iyaan xoolahaas, mid ay caloosha ka soo rideen iyo mid ay baabi'iyeen. waxaa kaga daran qofka oo ku dadaalo diintiisa, waxaa kaga daran qofka oo ku dadaalo sharafta, magac yeelo iyo maal doonka. maal in la doono diintu ma diidin. waxa la diidan yahay waxa weeye maalka oo ku raadiso si kasta oo awoodo, xalaal iyo xaraan noocaad ku soo jamcinaysa aadan kala garaneyn, shuqulna aadan ku lahayn. inaad soo xaddo, inaad soo dhacdo, inaad soo qaadato iyo inaad soo qaniimaysatay aysan waxba kaaga kala duwanayn. maalka oo noocaas loo raadiyo iyo qofka oo caan noqo daraaddeed wax badan oo xuduudda ilaahay u taraara daraaddeed ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku mathalay sidii laba dhurwaa oo gaajaysan oo xoolo lagu dhex sii daayay xero ah, kadibna xoolahaas ariga ah mid uu qaniino, mid uu caloosha ka soo rido, mid uu dhaawaco, mid uu wax yar ka goosta ka dhigay. nafsadiisa waxaa uga daran diintiisa uusan ilaashanayn, labadaas ka daran. maalkii waxaa ka dhigan diintaada, labada dhurwaa oo gaajaysnaana waxaa ka dhigan calaf doon iyo caan doon. inaad hanti ama wax soo qabo, maal soo qabo kaliya qalbigaaga ay gasho, iyo inaad caan noqoto oo lagu maqlo oo lagu ogaado oo lagu barto, aadan u kala aabayeelin meelaad ka doonayso. daqiiqadahan koon waxaan jeclahay inaan mithaal xayi ah, mithaal nool aan idinku tusaaleeyo. arrinta iyada baryaha kan waxaa ku badan facebooka ama social mediaha in dad fara badan isku dayayaan in nooc kasta oo ay caannimo ku heli karaan ay ku doonaan, xataa hadday ka gasho waxyaabihii xaraamta ahaa ee diinta ilaahay lagu xaraam yeelay iyo waxyaabaha aanan wanaagsanayn in afka soo qabtana ay adag tahay. arrintaas waxaa kow ka ah waxa loogu yeero ama dadka qaarkood baryahan ay yiraahdeen sex education baa socdo. arrinta ayada ah tusaale yar oo qosol badan waa idin sheegi doonaa, laakiin waxa weeye arrin cusub ma aha. waa arrin dadka muxuu ahaaye iskuulada ay ku arkeen gaalada ama waxyaabaha xun haddana waxay sii maraysaa in la yiraahdo waxa weeyaan gay sex education baa la sameeynaya. waxa lagu daray curriculumkii iyo waxbarashadii, waxa lagu darayaa baa la yiri meelaha reer galbeedka khaasatan Mareykanka oo kale. haddeer gobollo badan baa lagu soo bilaabay in lagu baro muxuu ahaaye gayga iyo qurunkooda iyo waxooda in lagu baro. arrintaasi caqligaaga dib ugu noqo, ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoo si dhab ah muxuu ahaaye ugu fakaraya caqligu ku siiyay. ma wax la isbaraa mise wax lagu dhasho? xoolaha neefka ee yar ee maaragtay maqasha ah marka uu dhasho oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu banaanka keeno, maqashaasi ma waxay u baahan tahay naaska hooyadeed wax ku aadiyo? maya, uma baahna. ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ku hanuuniyay, ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ku aadiyay, ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa baray qaabkii uu u doonan lahaa. markuu istaaga karaba inuu istaago, markuu karo horey buu naaska hooyadii ka aadaya. sidaas si la mid ah uma baahna galmada in la isbaro oo iskuul loo aado oo la isu sharxo, bal waxay ku tusinaysaa haddaad arrintaas samayso qalbigaaga waxa ka jira ee jira ah. maxaa yeelay jirooyinka qalbiga ku dhaca waxaa ka mid ah maradu shahwa ayaa ka mid ah.
shahwadaadu marka hadday degi weydo doonitaankaaga hadduu degi waayo haddaad qaboobi weydo xasili weydo meel kastay kula galaysaa curiosity-ga iyo doondoonida arrintaas ah. arrintaasi waxay hadda maraysaa in gabdhihii xishoon jiray ay galeen arrinta iyada ay ka qayb qaadanayaan ay soo baxeen gabdho sharxayo wax walbo ay ku qaadataba doonaya in ay ku sharxaan muxuu ahaaye waxa la yiraahdo sex education iyo galmada qaabka uu yahay iyo wixii inay maaragtay subhanallah sunnahan qofkii bilaabo dambigeedu leeyahay iyo cid ku camal fasha gadaasheeda sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam qaybta dambe xadiis uu ku leeyahay maxaa weeye qofkii sunna wanaagsan bilaabo sunnada xasanka ah wuxuu leeyahay ajirkeeda iyo ajirkeeda cid ku camal fasho gadaasheeda sidoo kale sunna xunninkii bilaabo dambigeedu leeyahay iyo dambiga ku camal fasho gadaasheeda waxa weeyaan cidi markii hore bilowday casharada noocaana ayaa waxa weey dambigeeda iska leh oo qaadanayso Allah subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamo ku weydiinaya bale tiisa ma aha ummadaha kale oo maaragtay lumiyay biqayr cilmin oo go'aankaas ku gaaray inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ku qarariyo oo ku jeexo arinta ayada qofkiisa bay noqonaysaa gabdhiba arinta ayada hadda la soo banbaxay gabdhihi baa sharxayo subhanallah within 3-4 days gudaheeda bayjaj buuxo oo maaragtay bahalka ka soo baxayaan odayaashii waaweynaa ee 80 jirada ah ee ka xishoon jiray waxyaabaha xunxun ee taabuuga u arki jiray baa maanta ay tumxaha xalaashaysanayo arinta ayada dad baa u horkacay oo yiri waa wax wanaagsan dhibaato ma leh aayad quraan iyo xadiis daliishanayo subhanallah ikhwani fillah waxaad aan maqlay mararka kamid ah qisadaas dhab u tahay ma aqaan laakiin waxay u badan tahay inay la xil soo heli kara ay tahay madaxweynihii Daniel Arap Moi la dhihi jiray Kenya oo aan filayo madaxweynaha hadda joogo Kenya kiisi ka saddexda ahaa ama kii u horeeyay kii ku xigay ahaa ayaa waxa la yiri maalmaha kamid ah ayaa loo keenay wadanka Kenya waxyaabaha noocaas sex education asaga oo marka arintaas rabo inuu Kenyaati ka dhaadhiciyo ayuu isugu yeeray baa khudbo dadkiiba khudbada u bilaabay wuxuu ku yiri dhageysta maanta cadaan waxay wadaan waxbay noo keeneen waxay yiraahdeen buu yiri sida aad isu dhali lahaydeen ama aad maaragtay isugu tagi lahaydeen ma taqaaneen waa idin baraynaa arintaas ma ka yeelaynaa ma yaa liiri waa la qosqoslay wuxuu yiri waa liiri marka dadka cadaanka nawaazimu waa waalan yihiin dadka cadaanka ayagoo leh ay meesha ka dhaqaaqeen baa liiri dadkii khudbada iyada ah say u jirta ma aqaano hadii rabto waa arin nukata ama waxay dadka loo qososhiinaya laakiin waa inay dhacday ama 80% inay dhab tahayna waa laga yaabaa nin arrimaha noocaas ah oo kale laga sheekeeyo oo sheegu ah waxyaabaha qosolka leh laakiin dadka ku educate gareeyo wax ku baro waxyaabaha kale uu sheegay waxa kamid ah la yiri wuxuu yiri waa dadka cadaanka ah intee noo yimaadeen bay ilaahdeen buu yiri hallelujah dhaha kor u taaga gacmaha kolka aan kor taagnay intee bible noo dhiibeen aan hallelujah nirina dhulka ku jeesteen qaateen buu yiri nin la yaab leh waxa marka ma maanta ayay maraysaa in intay dad aayad iyo ahadiis u daliishadaan ama ay yiraahdaan sex education baan sameeynayna dadku ku soo yaacaan page-ku 1000 iyo 2000 iyo 3000 iyo 4000 qof uu gaaro kadibna la weydiiyo su'aalo aad iyo aad looga yaqiiqsado la sheego xubnihii taranka ahaa ee laga xishoon jiray gabdhihii waxa noocaas waliba ka sii xishoon jiray ay ku soo dhiiradaan ay yiraahdaan wax laga xishooda ma aha xaq wax laga xishooda ma aha waxaan sheegaynaa waa xaq wax dhibaato ah ma leh arinta ayada heerkaas ay gaarsiisan tahay waa arin taabu ahaan jirtay ceeb ahaan jirtay dadnaan jirtay wax kalena ma aha xubinta taranka waxay la dadan tahay waa ceebta ay tahay daraadeed qofkii iyadaas fayday muxuu kaga duwan yahay qofkii afkiisa ku fayday qofkii inta soo baxay dadka dhex salaqleeyay asagoo qaawan muxuu kaga duwan yahay qof asagoo afkiisa ku sheegay oo kala xishoon waayay muxuu kaga duwan yahay gaaladii baa ka xishootay inay erayada xunxun ee aan wanaagsanayn ee maxaan ku raahdaa lagu sheego waxa la yiraahdo lagu sheego muxuu ahaa idaacadaha ama miidiyaha kala xishooda caruurtooda inay maqashiyaan markaasay waxay saareen polarize duud bay siinayaan markii eraygu soo maro after words-ka waxbaas ku jira ayada waxay qabsanayaan duud baad maqlaysaa duudtaas waxay qarinaysaa eray uu qofkaasi si kharjaan ma u isticmaalay maxay tahay marka haddii gaaladii ka xishootay shayaatiintu waxay ka xishoodaan dad islaamnimo sheeganayo xijaab soo saaranayo ama gar leh oo quraan maxaan ku raadayay daliishanaya aayad iyo xadiis in ay maaragtay dadka isugu yeero dadka ha kuugu yimaadeen ratingkaagu ha bato muxuu ahaa darabku diidin sheerkaagu ha bato ha lagu maqlo caan noqo waxa doontaba u samee hadday xataa kula galayso inaad xubnihii taranka sideed u qayaxdo hadaad muxuu ahaa galmadii iyo wixii dhici jiray xilliga private-ka aad
go'aan ku gaarto inaad qarariso aad jeexdo maxaad kaga duwan tahay qof diintiisa gatay maxaad kaga duwan tahay muxuu ahaay qof diintiisii baaba'saday oo waxa weeyaan gadanayo qayb u gooniyo nuraqicu dunyana bitamziiq diinina fala diinuna yabqa wala ma nuraqicu nin baa laga hayaa wuxuu yiri diintanada ayaa meel kasta oo jeexanto adduunyadanada ayaan ku kabnaa buu yiri adduunyadanada marka ay jeexanto adduunyadeena ayaan waxaan soo jeexanaa oo soo goynaa diinteena waa ku ruqaacnaa waa ku kabnaa diintanaduna ma kabmayso wixii aan kabaynana ma kabmayo oo ahaa adduunyada wixii aan doonaynay in aan maaragtay kabno oo adduunyadan ma kabmayso diinteenuna way dhamaanaysaa waxba kama haray maxay marka arinta ayada kaga duwanta ikhwaani fillah in aanan u fiirsanin waxaan sameeynay action keenan ilaahi subhanahu wa ta'ala u bandhigin aakhira maxaa iga iimanayo ummadayda maxaan kaga fasahaadinayaa maxaan ku soo kordhinayaa wanaag ah adana ka fiirin kaliya ay noqoto arinteena xuduuda dunyadan yarta ay dhaafayso maanta in la ogaado la share gareeyo ugu bata ratingkayga youtube-ka aan maxaa ku racaan ka noqdo kadibna aan share kula galo muxuu ahaa halkaas aan hanti ka raadiyo magacaan yeesho aan noqdo meelaha la iga yeero waxaan doonaba aan ku helo waxaan doonaba ha iga soo raacaan wixii doonaba ha iga gaareen saan doonaba aan u sameeyay ilaa haday rabta igu gaarto in aan diinta ilaahay ku xadgudbo aan xaraamta xalaashado hadaa rabta igu gaartee arinta ayada maxay ku gaarsiinaysaa diintaada soo ma dhamaanin soo go'aankaaga ma noqonin marka arinta waxay maraysaa hadeer sex education iyo waxa la mid ah iyo waxyaabaha dadku ay hantida ka raadsanayaan ee hanti aanan ahayn xaqiiqatan ee berberka adduunyada isleeyahay hal laakiin waxaan ilaahay uga qorin waxaan ahayn uusan heli doonin waa khatarna soo wajahday in laga digana mudan ikhwani fillah rasuusha ilaahay waxay ahaayeen mubashiriin wa munziriin waxay ahaayeen kuwa dadka u bishaareeyo sidoo kalena u digo oo waxyaabaha xun uga digo barnaamijkanaga waxa aad ugu badan in dadka wax uga digno sidoo kale u bishaareynaa marka qaarkood markii ay dhacdo munaasabad waxaan jeclaa maanta inuu gala soo qaybgalo barnaamijka qayb kamid ah live-ka wiil muslim ah oo soo islaamay bilahan gudooda bil iyo wax yar ka hor in Soomaaliya ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantiisa ku soo hanuuniyay diijan baa la yiraahdaa ninka isaga ah waqti hadda waan isu weynay jimcihi baanan hayo waxa weeye ninka isaga ah qasa cajiib uu leeyahay isaga iyo wiilka isaga islaamka ah iyo wiilkii ilaahay ku soo muslimiyay Soomaaliga ahaa waxa weeyaan qisada dhexmartay ee qaabka ku soo muslimay wuxuu idil baan jeclahay insha Allah ta'ala wiiga soo socdo ama wiiga soo socdo inaan soo bandhigo bidin ilaahay barnaamijkan daashow ku xirnaado Allah idin barakeeyo khayrkan isu kaalmeysano dadka xumaanta aan uga digno wanaaga aan ugu bishaareyno waxa weeyaan xumihii uu batay xaq diineed iyo xaq adduunyada uu naga soo weeraray waxa weeye inaan iskaalmeysano gacmaha isqabsano dadka wanaaga ugu yeerno khayrka iyo maaragtay wanaaga isugu farno xumahana aan uga digno wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh share si dhaha si dad kale waan ogeyn uu gaaro assalamu alaykum